waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka Ustaad Saciid Training. waxaynu guda geli doonaa xalqadii 29aad ee casharadii taxanaha ahaa ee noo soo socday. sida aan shaashada ka aragtaan waxaynu ku baran doonaa qaybtan sida loo diyaariyo chocolate ama shukulaato, milky dairy chocolate waxa loo yaqaano. marka waynu guda gelaynaa page cusub baynu soo furanaynaa. halkaa markaan joogno kalarkeenu bedelanaynaa, waxaynu ka dhiganaynaa blue baynu ka dhiganaynaa. okay baan leenahay. halkaa markaan joogno waxaynu furanaynaa layer baan furanaynaa, rectangle-kaasa soo qaadanaynaa, halkaasaan ka bilaabaynaa. kadib kalarkaa hoose oo chocolate-kaa baynu rabnaa inaan saarno. marka waxaan oranaynaa control delete baan oranaynaa, kadib control D baan leenahay. halkaa markaan joogno filter baan tegaynaa, waxaan kasii tegaynaa distort wheel baan dooranaynaa. halkaan size-keenu u baahannahay baynu ka cabiranaynaa. marka last baynu geynaynaa meesha ugu dambeysa. okay baan leenahay. hadafkaan nooga jeednay marka waa calaamadan inaan samaysano. calaamada ka gedisanna waa ku samayn karnaa. halkaa markaan joogno blend option baan leenahay. waxaynu tegaynaa Bevel and emboss. halkaa markaan joogno oo ujeedaan calaamadda say iska dhigtay. marka xogaa qaybtaan hoosaan bedelaynaa, waxba qaybaha isku mashquuli mayno. qayb walba oo halkan ku jira sida ay ugu jidho inner bevel baa ka dhigaysa, halkan just hard baa ka dhigaysa, halkan down baa ka dhigaysa. okay, halkan abkay ku qurux badan tahay, ab baa ka dhigaysaa halkaas. halkaa markay kuu joogto qaybahan mid walba qaybta kugu jidhaa ka dhiganaysa. halkan render state baa ka dhiganaysaa. angle-ku waa 90, attitude-ku waa 30%. marka qayb walba oo halkaa ka muuqata qaybteeda gelinaysaa. okay baan leenahay. halkaa markay noo joogto waxaynu sameynaynaa rectangle, waxaynu sameynaynaa layer baan soo qaadanaynaa, rectangle baan soo qaadanaynaa. chocolate-kii baan rabnaa inaan diyaarino. marka inahaasaan ka dhiganaa. inaha markaan ka dhigno waxaan leenahay control delete, alt delete baan ku xijinaynaa. waxaan ka wadnaa control delete, control D baan ku xijinaynaa. halkaa markaan joogno waxaan oranaynaa right click baan oranaynaa, blend option meesha haddaan tegaynaa. kadib Bevel emboss baan tegaynaa. halka xaajadu markay joogto wax weyn ma bedeleno, size-kaan kordhinaynaa. contention baan ka dhiganaa, halkaas 55 baan ka dhiganaynaa. wax kaloo bedelaad inooga baahan ma jiro, halka ab bay noo ahaanaysaa. okay baan leenahay. halkaa markay noo joogto waxaan soo qaadanaynaa qoraalka, halkaasaan la imanaynaa. qoraalka 110 baa ku jira, waxaan ka dhiganaynaa 30 baynu ka dhiganaynaa. kadib waxaynu qori doonaa magaca chocolate baan qoraynaa. marka aan qorno control T baan leenahay, waa jeedinaynaa magaca. saasaan u jeedinaynaa.
magacu waa yar yahay waan kordhisanaynaa 35 baan ka dhiganaa ama 36 baan ka dhiganaa okay halka markii noo joogto magacaas waa noo fadhiyaa isla plan option baa tegaynaa plan option markaan tagno inner bevel kiba bevel emboss kiba waxaan tegaynaa emboss sorry waana colorka soo bedelnaa marka colorka inaan ka soo dhiganaynaa okay waan leenahay sorry ka baxa ma ahayn plan option baa ku laabananaa colorka waynu bedelanay colorka waa ka tig inoo saaran yahay waxaanu tegaynaa bevel emboss halkan waxaan ka dhiganaa inner bevel meesha ku qoran tahay emboss baan ka dhiganaa halkan emboss markaan ka dhigno halkan upka down baan ka dhiganaa hoos baan u dejinaynaa hoos markaan u dejino qeybtaan 75 baan ka dhiganaa weli la yareeyo soddon baynu ka dhiganaynaa inahaas 5 baan ka dhiganaa halkaas halka markay noo joogto qaybtan baa imananaa round step bay hadda joogtaa baan malanaa round step marka ayaday ku qurux badan tahay okay waxaan u bedelanay linear baan u bedelanay marka taasaan u daynaynaa linear kaasaan u daynaynaa linear kaasaan u daynaa okay waan leenahay halka markay joogto waxaan isku xiraynaa chocolate-ka iyo magaceedaan isku xiraynaa markaan isku xirno group baan ka dhiganaa waa koobiyeysananaa saan u koobiyeysano xaranaa altan qabananaa waa jiidanaa drag baan leenahay altan qabananaa waa jiidanaa drag baan leenahay altan qabananaa waa jiidanaa drag baan leenahay afar xabaa inoo samaysan 5 baan ka dhiganaa altan qabananaa waa jiidanaa drag baan leenahay halka markay noo joogto kana qabananaa space lama rabo oo ku durkinanaa kana qabananaa waxaan fiirinanaa spaceka u dhaxeeya okay hadda kaana waa joogaa ka sarreeya imananaa sida markii hore wax badan baa la socday asna waa ka spaceka ka saarnay kana imananaa okay hadda inoo fadhiya waa isku xiranaa markii control baan qabananaa waa wada doorananaa kadib group baan leenahay inta hadda isku xiran tahay copy baan ka samaynaa control j baan leenahay copy markaan ka samaynaa waa soo jiidanaa hoos baan soo dhiganaa halashaan space baa moodaa inuu kuraadoono okay inaha markay joogto control baan qabanaa labadana isku dooranaa waa isku xirnaa macnaa labadana isku xirnaa hoos baan u soo dejinaynaa control t baan leenahay inaha saan u daynayaa waxaan samaynayaa qoraal baan soo qaadanayaa halkaasaan soo dhigayaa waxaan ka dhigayaa 110 baan halkaa ka dhiganaya 110 size-ka
hadafkan u socdo waxa weeye magac baan qorayaa Cadbury chocolate Cadbury chocolate. Okay, magacu waa sax yahay. Waxaan isku daynaa right click baan leenahay balan option baan tegaynaa color baan horta dooranaynaa colorka waa inuu chocolate kan waa ogaa waxaan moodaa I don't know marka meeshani baan tegaynaa Bevel emboss baan tegaynaa markaan tagno kan inner baan ka dhigaynaa kanna up baan ka dhigaynaa markaan ka dhigno dheeftiga waanu badinaynaa waan siyaadinaynaa dheeftiga size-kana 50 baan ka dhigaynaa 50 bay ka dhigaynaa 50 markaan ka dhigno waa uu fadhiyaa magacii waxba inagama maqnaa okay kaas oo jeesana okay baan leenahay waa isku xiranaa alta control A baan leenahay kadib control E baan leenahay control E baan leenahay sida loo save gareeyana waa garanaysaan saasa cashar ku dhamaystirnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.